Assalaamu calaykum asxaabta dhammaantiin waa idin salaamay fadlan channelkiina kusoo dhawaada mar kale haddii aad channelka subscribe gareynin waxaan kaa codsanaynaa mar kale inaad channelka subscribe gareyso mar haddaan soo booqatay naga noqonin waxa weeyaan aad bay noo farax gelinaysaa insha allah taas waa codsi waxa weeyaan sida ogtihiin toddobaadka qorshaha toddobaadka wuxuu ahaa inuu weekend dhiskana inta badan fiidiyada aad u baahan tihiin iyo waxa marka loo jira aynu soo dhigno fiidiyada inta kale ay noqdaan maxaan dhahay safarkii waqtiga dhawaa aan bilownay isaga la socday trading internetka dhammaan tradyada marketingkiga bal aan ku fiirfiirinayni khaasatan weliba forex trading oo maxaan dhahay asaga xiise gaara aan u qabay inaan bilaabo mar waxbarashadeedana aan wadnay bal inaan intaan bilaabo aan idinkana idinla sheer gareeyo waxaan marka ayadaa safarkiga aniga oo mar walba ku xasuusinay inaan macallin ahayn ama aan waxba ku barayn kalaata waxaan dhigay meesha inay tahay waxaan sheer garaynayo oo waxaan aqaanaa iyo maxaan dhahay markaas tradingii analyze garayntiisii bas adi marka hadaad garanaysidna inaan isla analyze garayno aad saxdan ku saxo laakiin meesha inaan maxaan dhahay arday mooyaane inuusan meesha macallin ahayn wax joogo oo cashar aad dhiganaysa waxa ma jiro saa inaa la socotid baa raba taas mar walba waan xasuusiyaa sidoo kale waxa weeyaan safarka sababta aan idinla sheekeeyo waxay ahayd beri lacala haddii aad xitaa meel ka gaarto oo kale waxaa laga fiican yahay inaad beri intaad soo fadhiisata dhacdo waagii aan bilaabay taas umaan anigu istiray waa laga fiican yahay laakiin waxaan jeclaaday in aan bilowgaba aan la bilaabo ilaa aragtaan anuba zero taagan si aynu ilaa waan u socno saa ogtihiin waxa weeyaan waqtiyadii hore waxaan ku trade gareynay demo account waxaan inta badan tijaabinaynay maxaan dhahay brokero kala duwan so brokerkan waddanka tusaale ahaan turkiga oo kale brokerkan turkiga dadka aadka u badan ee trackida ay isticmaalaan tijaabo anoo ku sameynaya fix promise baa la dhahaa khaasatan waxa weeyaan inta badan dad Soomaali oo Facebook soo dhigtay waan arkay xagooda YouTube-ka minus in dad Soomaaliyan ay yaqaanaan baalkan so anyway brokerkan ayaan waqti dhaweyd galay aan ku bilaabay qiimaha lacagta waxaan raadiyay lacagta waxaan ku galay qiimaha ugu jaban minimum yani because broker aadan hubin inaan wada invest karayo taas fandidana so minimum amount ugu hooseeyaan ku galay asxaab raalaha codkayga waxa weeyaan xabeeb baa isoo yaan moodaa inuu codkaygu leeyahay anyway so waxaan halkan idinkula sheer garanayaa mar walba halkan waxaan idinkula sheer garaya waa trading live aan ku jiro ama waan khasaare ama waan faa'iida laakiin markaas ayada ah live baan idinkula soo galaa macnaheedu ay tahay trade aan markaa ku jiro dadka waxa laga yaabaa mar inay maxaan dhahay soo edit karayaan trade-ka ay guuleystaan soo dhigaan yani halkan waxaan idinku tusaya waxa weeyaan trade-da aan anigu galay asla saacada aan ku jiro so alaanada telefoonkayga ayaan halkan idinkula sheer garanayaa waa trade-ka aan ku jiro waqti xaadirkan ayaad halkan ka arki kartaa so as you can see halkan trade-kan waqti xaadirkan ku jiro ayaad arki kartaa live trading-ga waxa uu marayo qiimaha waxa weeyaan waana iska bilow barkood sida hadda trade-kan oo kale iyo trade-kan waa bilow so trade-yada marka aan ku jiro hadda aan galay waqtiyada kala duwan iyo sababta aan u galay iyo sababta aan u qaatay ayaan halkan idinku sheegay marka adigu waad igu raaxi kartaa sidoo kale waad igu reject gareyn kartaa so hadda trade-ka ugu horeeya GBP Japan oo kale waxaan qaatay GBP Japan oo arkaysaan inaan sell limit iri as you can see waxaan ka wadaa buy limit aan dhahay buy anyway GBP Japan aan tago trade-kiisa so as you can see GBP Japan halkaas ayaan kasoo galay waxa weeyaan ilaa halkaasna buy ayaan ugu jiraa sababtaan u galay waxa weeyaan aniga inta badan waxaan isticmaalaa strategy-ga moving average-yada ayaan aad u jeclahay inaan isticmaalo waa laga yaabaa in aad strategy kala duwan isticmaasho laakiin strategy-ga moving average-ka oon ku lifaaqayo trade-ka trendiga u socdo aan u diiday inaan trade-ka kasoo horjeedsado markaas ayada waxaan isticmaalaa waygaas so waxaan markii aan fiiriyay waxay ahayd anigoo ku eegaya sidoo kale Fibonacci laakiin before waxa weeyaan moving average-kayga midka uu markaas igu dhacayo waxaan ku tijaabinayaa dhowrka jeer oo moving average-ka midka inta ugu badan uu kusoo dhacay waxa weeyaan hadda 50 moving average-kan arkaa inuu kusoo dhacay badan as you can see halkan inuu halkan trick ii sameeyay trick-ku ii soo dhacay waa aragtaa sometimes marka waxaan sameeyaa sometimes waxa dhacda waa run oo trade-ku halkaas ayuu ka noqonaya as you can see trade-ku inuu halka kor aado uptrend adoo uptrend oo saxsan ayaa laga yaabaa in haddana sell kugu dhufto marka sababta kale wayada looga hortago waxaa kamid aniga waygaan isticmaalo hadda oo kale tusaale waxaa weeyaan 1 hour to get 2 hour ama 1 hour to get 1.5 hour oo macnaheedu tahay inaan hal hour khasaariyo si aan 1.5 hour u sameeyo ama 1 hour aan khasaariyo si aan 2 hour u sameeyo
laakiin 1 hour inaan 3 hour u sameeyo oo kale waa optional. So hadda halkan oo kale 1 hour kayga haddii aan ka dhigay 12 pip weliba anoo isticmaalayo labada strategy ah inaan 12 pip isticmaalo as a sell hit ama aan isticmaalo 8 pip as a sell hit. So sababta aan 12 u isticmaalo marka ay waxay weeyaan marka ay GBP Japan tahay. GBP Japan inta badan waxa weeyaan triggeeda waa wax la yaab leh. Inta badan waxa weeyaan sidan oo kale ayuu sameynaya غير caadi u soo dheer. So the best ways waxa weeyaan 12 pips oo kale. So hadda line-kan casaanka ma aha line-ka dhabta ah laakiin line-ka aan ku jiro waa meelahan oo kale tusaale hadduu meelahaas oo kale yahay 12 pips oo kale. So 12 pips oo kale ayaad kasoo durqaysaa laakiin inta badan triggeeda kale ee GBP ka baxsan yahay 8 pips oo kale waa enough. Yani marka adi 8 ilaa 12 inta u dhaxaysa laakiin 8 waa inuu ka sareeyo 8 9 10 11 caadi. So trade-ka saas ayaan u galay uptrendingana waa arkaysaan direction ahaan inuu uptrend ahaa yani markiisii hore ilaa halkaas trade-ka waan ku jiray laakiin waxa weeyaan marka halkaas aan kaga baxay and then halkaas aan ka qaatay laakiin as you can see inuu halkan waxoogaa uu sameynayo like uptrend sax uu sameeyay as you can see laakiin again waxaan qaatay anigu moving average-kayga isticmaalay inaan trade-ka dambe meelahaas kaga baxo aan rajeynayo in trade-ka dambe kan sixi doono laakiin weli ma dhicin. Sometimes way dhici kartaa waxaas marka ugu mar walba inuu waxaan yahay yani some kind of wax laba ma aha laakiin adiga wax weeyaan mar walba inaad prediction-kaaga ku salayso accurate oo isticmaalayso strategy ku accurate. Trade-ka labaad ku jiro waxa weeyaan as you can see GBP USD. So GBP USD na bal asagana aan eegno sababta GBP USD na u kala noocaas. So GBP USD waxaan sameeyay as you can see here GBP USD waxaan asagana u galay downtrend. So dhamaan inta badan waxaan jeclaa spirit-ku inta badan marka uu zero yahay inaan ku qabto hadduu xataa zero noqon waayo inaan ku qabto spirit-kaas yani little inta ugu yar yani spirit-ka inta uu yar yahay sida ugu yaraan spirit-ka u yareyn karo. Marka waxa weeyaan oo kale tusaalaan ani trending meelo markaan soo mariyay oo kale aanan halkaas sell limit u sii galay yani lacala because moving average ku soo dhaafi karaa laakiin sell limit kaas inaan probably ku soo qabto. So sell limit kaas oo kale aan soo galay as you can see hadda ilaa intaan socdaaba and that's yani by the way maadaama aan minimum amount ku trade kareynayo $100 waxa weeyaan waxaan aad u yareynayaa bahalkayga. So adi marka isticmaalka calculator iyo waxa isticmaalaysid laakiin waxa weeyaan maadaama aan minimum amount ku trade kareynayo waxaan jeclahay inaan maxaan dhahay sentiya ku trade kareeyo sidoo kale bipskiiba. Waxaa saas oo kale aad hadda aragtaa inuu trade-kaas sababta aan u galayna isaa tahay welina uu downtrend yahay. Trade-ka labaad ku jira asagana waxa weeyaan trade-ka saddexaad New Zealand USD as you can see isagana waa noocan waxa weeyaan moving average-yada anigoo daawanaya oo arkaya moving-yadiisa oo kala sareeyaan again haddana aan arkay inuu yahay bahalkii downtrend ayaan waxaan isticmaalayaa anigoo isticmaalay strategy-ga hadda waxaan ka dhigayaa downtrend ama sell baan ka wadaa sell limit. Marka aan sell limit baan usii galay. So sell limit sababta inta badan aan u jecelahay inaan trade-ka ku qabto point-iga uu ka noqonayo waxa weeyaan spread-kiisa yani inaan sida spread-ka inta aan yareyn karo aan yareeyo. So hadda tusaalaan halkaas oo kale markuu soo maray aad u malaynayso inuu soo gaaray oo kale ayaan waxaan sameeyay oo kale tusaalaan sell limit baan usoo galayaa oo kale anigoo markaa rajeynaya inuu trade-kaas dib u maxaan dhahay sell limit ku dhufan waxaan ka wadaa dib ugu soo noqon doona. So anyway trade-yada aan galay waa kuwa sababaan u galnaa sida marka maadaama ay live trading yihiin waxaan jeclaystaa inaan tusabada la share kareeyo waana sidii caadada noo ahayd sameyn jirnay waqti xadirkan $6 ayuu marayaa lacagta. As you can see waa real account. Let me show you account-iga because waxa weeyaan account-igu waa real account. So inshallah waxaan rajeynayaa inaad maxaan dhahay aad ila aragtaan anigooyadayda aan soo bandhigo mar walba jeclahay inaan la wadaago asxaabta dhammaan inshallah trade-yadu weli ma dhamaanin because maxaan dhahay take profit-keena waa meesha waxa weeyaan inshallah waxaan rajeyn doonaa videoga dambe inaan inshallah aan kusoo daro qayb kamid ah sawirka kan oo ah inaan maxaan dhahay inta guuleysatay iyada wixii kale inshallah dhammaantiin inta video kale iska arkayno waan wada salaamaya inshallah wiilka ama gabadha nagu cusub ee soo booqatay waxaan leenahay inshallah ha iloobin inaad channelka subscribe gareyso raali ahaada codkaygana inshallah dhammaantiin waan salaamaya habeenkayga idin wacnaado.